وأما بنعمة ربك فحدث. إمام قاضي عياض كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى آيات وحق شيء وأما بنعمة ربك فحدث. markii nabigeena aayada ay ku soo degtay ayuu nabigu saxaabadiisa ku yiri ana awwalu naas khurujan idha bu'ithu. maalinka qiyaamaha khalqigu dhulka ay ka soo bixi doonaan ka ugu horeeya dhulka ka soo baxay buu aniga. khatibuhum idha ansitu maalinta bini aadanka la aamusiin doono ka u hadlaya buu aniga. shaaficuhum idha hubisu marka dadka la joojiyo cadceeda halka ay naga gubaysa madaxooga sida loo duldhigo ee 40,000 sanadood banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay 70 xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalinta dadka u shafaacad qaadaya ee u wargeynaya buu nabigu waa aniga. mubashiruhum idha aisu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaareynaya buu nabigu waa aniga. liwaa'ul hamdi biyadi yawm al-qiyamah calanka mahadda maalinta gacantaydu ku jira calanka mahadda. aadam alayhi salaam oo abul bashara ibrahim al-khalil alayhi salaam oo nabi ibrahim aad garanaysaan abul anbiya labadoodaba ka soo qaad buu nabigu yiri maalinka qiyaamaha calankayga hoos joogsanaya buu calankaygaas. walaalayaal nabigeena muhammad alayhi salaatu wassalaam han garana qadarkiisa oo awlaadeena han barno maxabada nabigeena ciyaalkeena han barno oo inakuna maxabada nabigeena han baranno oo salligiisa han badino oo sunnihiisa han qaadano. waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiin in hadii laga cadhaysiiyo qaar diinta caayaya qaar malaa'igta caayaya qaar ilaahay abuuray afka ku taagaya qaar nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaana ceeb u lahayn bay ku sheegayaan. wallahi summa wallah maalin maalmaha kamida masaajidkii nabigeena nin munaafiqa intuu asxaabta sida u eegay غزوة بالوجري غزوة أيو يري ساسو يا صحابتي كو قرآن آخرنا يبو أركي يا معشر القراب وكي والأركين القرآن أخرس كبدل له مركع عنتد لعوننا محاين نقع عن توقوين أو نقع عروين مركع دقال كلا قرانا محاين نقع فليسين وكي انت عصويلي بس لصع مركع دقال لقال يانا محاين نقع فليسين مركع عنتد لعونا يانا محاين نقع عن توقوين أو نقع عروين. صحابي بهذا الكلام قال لعله عمر انها markii uu nabiga u sheegay markii ninkii munaafiqi wuxuu yiri maxaa nabiga igu diribuu keen waan kaftameynay uun waska yar baashaalaynayo waana soo daalayo hadalka sheegada waa lagu yar nastaaye markaa uu nabigu badilmay. quraanka ilaahay soo dajiyay qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. qul waxaad ku tiraahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa qur'aaniga iyo rasuulkiisa ayaad ahaydeen kuwa ku dheeldheele ku jeesjeesa cudurdaarkaasi niga soconi maayo baa lagu yiri waad gaalowdeen baa lagu yiri waad gaalowdeen. yaa macshar alqurraa ereygu ku gaaloobay bal u fiirso kuwiinan ururkiinan qur'aan akhriska badan lahow marka la dagaalamana maxay niga fulaysan marka cunto la cunina maxay niga cir weyn. labada kalmadood oo jeesjees uu yiri ayaa ilaahay cadeeyay ninkaas inuu gaaloobay khalaas. ka ilaahay afka ku taagayna ka waran ka nabi maxamed afka ku taagayna ka waran halkuu ka soo galaya diinta islaamka markaas ma arafnaahu. liwaa'ul hamdi biyadi banka qiyaama buu nabi maxamed leeyahay calanka mahada maalinta ana hayo ana la hoos jooga waa maalintee waa maalinta khalqigu ciirciirayaan aadam bay u tagayaan noo shafaacad qaad dhibtan ana inigu wacan buu leeyahay jannadii dambiga aan galaad kaga soo baxdeen anigu ma lihi ordo qeyrkay u taga ergada anu maanta ma lihi nuux bay u tagayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii waa aniga ummadayda ku habaaray ducadayda maanta la aqbali maaye ibraahim al-khaliil u taga ibraahim baa loo imanayaa saddex beeman adduunyada ku sheegee tii in laygu qabtaan ka baqayaaye ordo qeyrkay u taga muusa loo imanayaa muusana wuxuu leeyahay anu qof bini aadan dilay buu leeyahay. ciisa ibn maryam baa loo iman ciisa cudurdaar sheegan maayo laakiin wuxuu leeyahay anigu ma lihi maanta markaasuu nabi maxamed uu yiri anaa la iman doonaa yaa loo tagi doonaa banka qiyaama yawma aljamci laa rayba fiihi
يوم التغابن يومئذ تعرضون إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا مالك أسوين مالك تدباتوا يتعلم مالك أسنى محمد لو تجي وليه هي أنا لها كدعاء صلى أقبل يا وأنجا كبريدي صلى أقبل يا وأنجا كشفاعتي صلى أقبل يا وأنجا حديث كلا نبي جن وكيلها نبي كستي إلهي الدنيا دوشيدا دعاء أقبل إلهي سيء نبي والب دعاء سي الدنيا كسو استعمالي أنا قلنا دعاء دي مالك قيامها خلق يودك تكون في عدونا برسول دي وصلي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالين كاسو نبي محمد إن حصوصنا يا إن كنا ما تسنه سبان اللوني دقن كي سبان اللوني شريعة سبان اللوني بل نبي قال الله قد إذا دل يرتو حيو أركان إن يتهدي بسعود نمو حيو أركان متأخر رجعي دب السعود دب النقد بوركان ماي إن هذا ظهر وسعته أي إن الدب وسعته ولا كالأرك دونا فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار سدح دلنيرو متعلمين أو دلنيرت جامع لها دكتا أيا أولي دون وتا أو ضدك بدها كشقيستو ناخودا أي كوير هذا ما أنت دون هذا نجا كره بدوين تنور عدي ومحاته صياحين دلحيس تيال بنا ومثل أركض دونتي كوهشيين فلان دونت بريجا واتي كسرعون جرت بريجا ضبيلها شراع على قوم دجري حاجة ضبيش الله ويعدري هي بربرية يا غانا يا رجبوتية الدنيا لأن مركز صدق حد دليرتي وذاك يبي ورستين كوير هذا أدر كني وبايلوت كنا وإنجنير كنا ودكتور هذا يقول لكن يران هذه محل برتي مركز أنا وصل الله ضباشا برتي فكو قصقص لأنه وحي كوير هذين ضيعت نصف عمرك وحسب ما تعلم به يران هذه وسكك سوء عيارتي هذا يقول مركز الله يا بس هذا وجه زين كانوا بايلوت ديارادو كحيا كانوا دكتور هاي كانوا مهندس يبني العمارات وصور بودسا هذا دبال مشقة وتعليم بقى مركز ويرجع ربي مركز بريجي أي وكقر صومي بدوينتي أي جوجان أي بدوي كعدة مركز ويك عدة بدو ساس وصل بيس مركز سوداء عندك لا يشقو شيء بوسكر دقيقة مركز بيجي كسر جستو وحيري دون تقعنت يدكم جرتوا هل مر صدح دي دلنيردي محبة دلمن نين دلنيراه oo noloshii hadda ay u bilaamayso jaamacadii ka soo qalin jabiyay oo badweyntii isagoo maraya la yiri markabku u qarraqmay bal ka waran markaas hal mar kaliya dhalinyaradii wajigii baa badilmay ilintii baa ka daadatay way qayliyeen markaas uu ku yiri markaan nigu yiri yaraantaydii dabaasha ayaan bartay haddaad igu tiraadeen cimrigaagii yaraanta waad soo dayacday anna waxaan ilaahay maanta cimrigiinii baad dayacdeene adigana beeloodnimada ku bax adna injineernimada ha ku badbaadiso أنا دكتور نمدي كوب بدبال أنا وضباش هذي ما بلاه يا أبوي ومثال يعني هذا دوار كيسد نبي محمد عليه الصلاة والسلام هذه جيسا يكود يشديسا أنا أركين ديب السعد نمو إن ديب النقلين هذا دوار كيسد ما هو حقيقة ما أنت عداد دوتو ما أنت الدنيا كأنت قاشد أي الله قرن دونا كيبا ديبو سعودها كيبا هرو سعودها لذلك السنة نبينا عليه الصلاة والسلام أي كفر أبينا الحمد لله إنكو دتجين المسجد كسوع عمري دتجي خير كجعلاباتهين دتجي دين تدنين يباتهين
dadkii nebi maxamed jeclaa baa tihiin runtii waxaad u fadhidaan masjiidka waa jacaylo ilaahay iyo jacaylo nebiga aad u qabtaan maalin ayuu nebigu arkay asxaabtiisii markuu nebigu weysaystay biyihii jirhkiisa ka daadanayey ayay gacanta hoos dhigteen markaabay isku masaxayeen oo ka barakaysanayeen sala allahu calayhi wasalam markaabuu nebigu yidhi maxaa sidan u samaynaysaan ii sheega ile nebiga wax jirhkiisa wixii ka baxoo dhan saxaabadu dhulka uma oggolaanaya tintuu iska xiiray way qaybtameen qandhuuftuu tufay gacan nin bay ku dhacday wejiguu marsanaayey kaa qandhuufta nebiga haleelay ee wejiga marsaday mid baa dul joogo isagana ka sii marsanaya o dharkiisa ku masaxanayay maradii nebi maxamed uu xidhay saxaabigii yidhi nebi allow ma axsanahaa alla maradu qurux badana waan u baahanahay isii waa ku siiyey buu nebigu yihi ii kaadi aqalkiibuu nebigu ku noqday intuu soo saaray go'ii ayuu laalaabo ninkiibuu siiyey saxaabadu ninkii way qabsadeen wallaahi ma axsantay bay ku yidhahdeen maad wanaajin waad arkaysa nebigu marada inuu u baahnaayo markii hadiyadda loogu keenayba waa kii aqalka galee soo xidhee maxaad u weydiisatay nebiga waad og tahay nebiga wax lama weydiisto haddii la weydiistana ma yaqaana nebi maxamed wallaahi waxaan u weydiistay inaan dhar ka dhigto ku xaragooda igama yahay waxaan u weydiistay inay maradaasi kafani noqoto kafan maadaama jirhkii nebi maxamed uu taabtay kafan baan ka dhiganayaa buu yidhi saasay nebiga uga barakaysanayeen maradiisii qandhuuftiisii biyihii jirhkiisa ka daatay ayay ka barakaysanayeen saxaabigii markii biyihii nebiga ka daatay hoos dhigtaa gacmaha markaabuu nebigu ku yidhi maxaa inagu ajburay inaad biyaha jirhkayga ka daato aad isku masaxdaan markaasay ku yidhaahdeen xubullaahi wa rasuulihi jacaylo aan u qabnay ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa sidaa u samaynayna bay ku yidhahdeen markaabuu nebigu yidhi dhegaysta haddaad ilaahay iyo nebiga aad jeceshihiin oo doonaysaan inaad jeclaataan markaad sheekaynaysaan buu nebigu yidhi run ku sheekeeya markaad layna aaminana ammaanada ilaaliya buu nebigu yidhi haddii lagu aamino ammaanada ilaali waa inaad noqotaa ammaano xaafid haddaad sheekayn run ku sheekay haddaad ballan qaadana ballankaa ka bixin buu nebigu yidhi ilaahay nebi maxamed inaad jeceshahay waxaa u daliila akhlaaqdaada saad ula dhaqaysid waalidkaaga saad jaarka ula dhaqmaysid saad saaxiibada ula dhaqmaysid saad walaalaha ula dhaqmaysid saad muslimiinta ula dhaqmaysid nacam idaa kaana calayka arbaca buu nebigu yidhi 4 sifa haddaad leedahay adduunye kaama tegin buu nebigu yidhi xadiis kale weliba xadiiskaas sanadkiisu waa daciif laakiin lilfadaa'il waa la isticmaali karaa 4 khasladood buu nebigu yidhi haddaad leedahay khayrkii adduunyada yaalle kaama tegin waad haysataa sidqu xadiiin haddaad tahay nin run sheega wa xifdu amaanatin haddaad tahay qof ammaano xaafida wa xusnu khaliiqatin haddaad tahay qof dabeecad wanaagsan haddaad tahay wacifatun fii matcamin xalaal mirte 4 sifo qofka mu'minku hadduu leeyahay khayrkii adduunyada yaallay iyo wanaaggii adduunyada yaallay kama tegin buu nebigu yidhi waxba kama tegin wax walba u gaadho u haystaa weeyaan run ku sheekay haddaad sheekayn run ku sheekay haddii lagu aamino ammaanada iska ilaaliyo maanta muslimiinta ammaanada maxay u arkaan dasa dhacday ma nigu soo daraa so waa nigu dheereey nin baa nin lacag u dhiibtay waa qiso dhacday wadanadeena inay ka dhacday dad kale ma dadkeena dhexdiisa markaasuu yidhi meel baan u baxayaa baadiye baankana aanu akoont kuma lihiyo nin iska waxaan ahay wadaadee lacagta ii xaji buu ka yidhi waa qiso marxaba uu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo maqaaxi weyn intuu furta ka shaqaynaya maqaaxidii oo birqaansan oo shaqada ku birqaansan markaasuu salaamu calaykum calaykum u salaamay casarkiiba haddana u soo noqday salaamu calaykum waa ninkoo mashquulsan cishaayigii buu u yimid wuxuu yidhi war dee maxaad ii dhaafdhaafi buu yidhi lacagtii berigaan kuu dhiibtay yaan u socdaayo lacagtaadii waa taa shaqaynaysay waa taa shaqaynaysay war maxaad leedahay lacagtaadii waa taa shaqaynaysay buu war lacagtu ammaanay hayde shuraka manu ahayn ammaanaan kuu dhiibtay waan ku aaminay walaa lacagtaydii sii markaas horay soo dacweyn makhalkan lacagta lagu qaado maqaaxiyahana dushiisa wuxuu ku qortay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina
aayadda meesheedii ma la dhigay war ma la dhigay jaadlayaasha kama aragtin tawakkaltu cala allahi wakafaa billahi wakiila miis jaad iyo maxaa isku keenay aayadda qur-aanka xataa jaadlayaasha ka dul arkaysa innaa fataxnaa laka fatxan mubiina qur-aanka meeshiisii lama dhigin hadduu qofku ammaano lahayna buu nebigu yidhi qofka ammaano aan lahayn iimaan ma labu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey jacaylka ilaahay nebiga aad u qabtaan wuxuu ku noqonayaa dhab maynii sheegaa markaad sheekaynaysa run ku sheekeeya markaad ammaano laynii dhiibtana ammaanada xafida haddaad ballan qaadana ballanka buuxiya buu rasuulku yidhi markaa masaajidkaa soo camirnay iyo khayrka aan dhegaysanayno waxay naga tahay waa diin jacayl alla jacayl nebi jacayl bay naga tahay sidaa daraaddeed zamanku waa zaman adag waxaan ku baqanaynaa marka xagga ilaahay fafiruu ila allah xaaladdu waa dhowaato waad argaysaan adduunka xaalad yar baa soo martay oo ilaahay waa inaga dabaylaha ilaahay naga raaciya dabaylaha wadannadu xanuunka hayana allaha ka qaada amiin dhahada laakiin dad badan way argagaxeen waddanno badanoo muslimiinana masaajiddii bay quful ku jebiyeen yaa muslim hadday dhibaata ay timaaddo halkee buu nebi maxamed ku ordi jiray idaa xasabahu amrun fazaca ila asalaa hadday nebi maxamed dhibaata la soo dharisto salaad buu nebigu gelayey xataa hadduu arka nebigu roob dabayla wata maskiidku soo galayay uu ducaynayey ilaa uu roobkaasi uu dhaafo dabayshu ay rafacanto nebigu maskiidka kama soo baxay istaciinuu bisabri waasalaa hadday dhibaata adduunyada dusheeda muuminka la soo daristo inuu argagaxo ma aha waa inuu yidhahdo annaku ilaahay baan haysannaa ducaan haysannaa qur-aan baan haysannaa xidhiidhka ilaahay baan haysannaa daawuu mardaakum bisadaqa kiinaynaga bukoodana sadaqadda ku duwayay buu rasuulku yidhi acmaashaasuu ilaahay rasuulkiisuna amrayaan daynaan diinta ilaahay qabsanno ku sugnaanno zamankan waa zaman adag waxaa laga yaabaa zamanba zamanka ka dambeeyana in xaaladdu ay sii adkaani doonto in fitantu ay sii ziyaadi doonto ayuhalmuslim waxaad ku baxsataa marka ilaahay xaggiisa u baxso insha allah dhahada yaa u diyaar inuu xagga ilahay u baxsado fafiruu ila allah ilaahay baan ku ordaynaa xaggiisa waxaa kaloo ku ordaynaa diinta ilaahay dadaalkeegaan ka shaqaynaynaa ijtimaaceennii baa inoo soo dhow bisha sebtembar aakhirkeega ijtimaac la rajeynaya in la qabto haddii alla yidhaahdo dee dadaalka diinta insha allah dhegta keliya diinta siini mayne diinta qawlan wa ficlan wa maalan wa waktanba diinta waan siinaynaa yaa u diyaar waa ilaa haddii kale waxaan la mid noqonaynaa ninkii reerka ku soo hoyda martiqaadka loo sameeyey halkii neef la qalayna uu arkayay oo la karinayo markii loo soo dhigayna labadii dhagood baa loo soo dhigay maa la marti qaaday ninka hormaa la marti qaaday dee sida ayaana ka dhigine bal insha allahu tacaala ijtimaaca inaan ka soo wada qayb galno oon ilaahay dartii 4 bilood 2 bilood 40 cisho hadba intaan waqti haysana inaan ilaahay dartii u bixinno ayaan niyoonaya bal gacantaa taago masaajidkoo dhanba allah ina barakeeyo waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan muddadan la baxayana nusuus ku timid ma jirto laakiin waa wasaa'ilu dacwa sida madaaristu wasaa'il u leedahay tacliimtu wasiila ay leedahay dhakhtarnimada barashadeedu wasiila ay leedahay kadalika dacwaduna wasiila ay leedahay wasaa'ilu dacwa waxaa ka mid a aalaadkan imika anu berigi hore waan diidi jiray laakiin beryahan waa igu qasabteenoo waxaa layga dhaadhiciyey inay tahay min wasaa'ili dacwa aaladan haddaad u ogolaatay wasaa'ilu dacwa jamacad ilaahay dartii u socota oo maalkoogii bixinaysa oo kalba tuulad degaysa oo kuwa qayalaya u tegaysa labadaa wasiilatee baa tii nebiga u dhow bal ii jawaabadee tee socota ta aaladanaa socota mise tan dadka socdaa sunnii nebiga u dhow lidaalika socodka lagama maarmaayo bal socodka wax beddelaya xaraka lahaa baraka hadday biyuhu socdaan biyahaasi iyakuna way daahir bay noqonayaan ciddii istiraada ka intifaacna iyakoo nadiifay u tegayaan laakiin biyuhu hadday fadhiistaan way wasakhoobayaan carfigoogaa isbedeli midabkoogaa isbedeli dhadhankoogaa isbedeli dabeedna biyahaasi waa ka guur weeyaan socodka ayaa ummaddani qiimo ku leedahay saafir tajidu ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nasabi falidaalika in sha allah
اجتماعنا عن كسر وضع قيب قال له مالكينا وقتكينا إلهي دينتي سينا كوب حنا وضع النيوذ مركل هذا أيام حي الله ذنبينا الله هداف ذنبي والدين تنا الله هداف دينت الله إنه معني مرلكنا الله شافيه موتاتكنا الله ونحرسته أمن إيمانك الله إنه زياديو dad badan oo walaalaheena ayaa mar walba noo soo duceeyay hada ilaahay nin walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn gacanta mid Allah ka siiyo dad baa xanuunsan ilaahay caafimaad sariic ah siiyo dad baa kurbaysan kurbada Allah ka qaado dad baa shaqo doona shaqo xalaal Allah siiyo dhalinyar badan oo guurdoona jirta guur xalaal Allah siiyo dhalinyaradeenna gabdha iyo wiilal baa Allah inoo asturo dalalka muslimiintana meel joogan muwaafiqiin min niman Allah siiyo dalkeenna aan joognana amniga Allah inoo adkeeyo aamin dhahada أمنك الله إنه أتكيو أمنك الله إنه أتكيو قلوب المسلمين الله مدايو صلى الله على سيدنا محمد